furdooyinku waa ilaha dhaqaale ee dalkeena ugu waaweyn marka laga hadlayo dhanka dakhliga dawladda. Si gaar ah Jubbaland waxa ay leedahay deked, garoomo diyaaradeed iyo xuduudo kuwaas oo dhammaantood qayb weyn ka qaadanaya kororka dakhliga dawladda. wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dawladda Jubbaland oo doonaysa in sanadkan ay shaqo geliso kastamyada garoomada diyaaradaha deegaanada Jubbaland sidoo kalena ay xoojiso shaqooyinka kastamyada xuduudaha ayaa si weyn u xusaysa maalinta caalamiga ah ee 26 Janaayo oo dunida oo idil si siman looga xuso maalinta furdooyinka adduunka. muhiimadda furdooyinka ee Jubbaland ayaa ah mid aad u weyn gaar ahaan marka laga hadlayo dekedaha, garoomada diyaaradaha iyo xuduudaha. furdooyinku waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan kobcinta dhaqaalaha dawladda iyadoo ay dawladdu uga soo xarooto dakhli badan oo ka yimaada canshuuraha iyo khidmadaha laga qaadayo alaabada soo gelaysa iyo kuwa ka dhoofaya furdooyinka, taas oo wax weyn ka bedeli karta dhaqaalaha dawladda korna u qaadaysa isku filnaanshaha dhaqaalaha dawladda. aan u hambalyeynaya maanta oo ah maalinta caalamiga ee furdooyinka oo ku beegan 26 bisha Janaayo. waxaan si guud ugu hambalyeynaya shaqaalaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo gaar ahaan waaxda furdooyinka ka shaqeysa si guudna dalka oo dhan xarumaha ka shaqeeya furdooyinka. waa maalin caalami ah oo loo asteeyay in lagu maamuuso oo la weyneeyo shaqooyinka ay hayaan ama ay u hayaan furdooyinka shaqaalaha. waa maalin loogu talagalay in maamuuskeeda gaarka la siiyo si loo kobciyo maalmaha furdooyinka. sidaa darteed ka Jubbaland ahaan waa markii labaad ee aan u dabaaldegno maalinta furdooyinka caalamiga ah. waa barnaamij dhiirigelin sameynaya oo lagu soo bandhigayo waxqabadka furdooyinka iyo horumarada laga gaaray. waxaan casriyeyn ku sameynay furdooyinka annaga oo daahfurnay nidaamka casriga ah ee Somkaas oo ah nidaam digital oo qofka ganacsadaha ah isaga oo goobtiisa shaqo jooga uu iclaaminayo foomka uu soo buuxiyo sidoo kalena lacagta ku soo shubo isaga oo aanan imaan xafiiska furdooyinka. sidoo kale waxaa socda dadaalo lagu mideynayo tariifooyinka dalka oo dhan oo ay Jubbaland qayb lixaad leh ka qaadanayso. waxaan sidoo kale xooga saaraynaa horumarinta furdooyinka xuduudaha sida Doobley, Balad Xaawo, Doolow, Ceelwaaq iyo Kiamboni oo aan wax ka bedel ku sameynayno haddana iyagoo si fiican aan uga shaqaysiin doono. waxaan rajaynaynaa xarumahaas oo dhan inaan sanadkan gudihiisa aan ka dhisi doono xarumihii xafiisyada gaarka ahaa ee ay ku howlgali lahaayeen shaqaalaha dowlad goboleedka Jubbaland ee furdooyinka. maalinta furdooyinka caalamiga ah waa maalin muhiimad gaar ah leh oo lagu xuso xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya ganacsatada iyo dowladda. sidoo kale waa madal iskaashi oo la isku weydaarsado fikradaha lagu horumarinayo furdooyinka. waa maalin lagu xuso laguna abaalmarinayo shaqaalaha furdooyinka Jubbaland shaqada adag ee bulshada Soomaaliyeed u hayaan. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay horumarka furdooyinka Jubbaland iyadoo oo si gaar ah aan waaxda dakhliga oo ay dhammaan customisku hoos tagaan ama furdooyinka hoos tagaan aan hambalyadaas iyo dhiirigelinta aan shaqaalaha ay mas'uuliyadda ay waajibaadka ay guteen aan ugu hambalyeynayno. si guudna waxaan rajaynaynaa sanadkii horumarinta furdooyinka inay noo tahay oo taasoo keeni doonto kobac dhaqaale waxna ka bedeli doonta dakhliga dawladda iyo miisaaniyadaba. runtii dakhliga dawladda wuxuu soo bilowday 2014 ilaa iyo haddana heerar kala duwan buu soo maray. meeshii ugu fiicnaydna hadda wuu marayaa. noocyaha dakhliga iyo muhiimadoodu dakhligu wuxuu u kala baxaa 3 qaybood haddana soo galaya. dakhli aanu gudaha dowlad goboleedka Jubbaland aanu ka ururino iyo dakhli dowladda federaalka aanu yimaada iyo dakhli hay'adaha caalamiga aanu. runtii dakhliga dowlad goboleedka Jubbaland mar walba kororba ku jira sanadba sanadka ka dambeeya uu sii kordhaa. tusaale 2022 iyo 2023
farqi ilaa iyo 10 milyan u dhaxeeya oo korod ku yimid ilaha ugu muhiimsan dakhliga dawlad goboleedka Jubbaland waa laba ilood dakhliga gudaha iyo dakhliga customka ama runtii furdooyinka wax badan baa iska bedelay tusaalaha koobaad waxa iska bedelay tariifadii oo dib u habeyn lagu sameeyay in badan oo muddo lagu soo shaqeynayo dib u habeyn lagu sameeyay barnaamijkii casriga ahaa ee somkaas oo nooga dhaqan galay oo aan rabnay inuu si toos ah isaguna u dhaqan galay oo kastamada iyo furdooyinka uga dhaqan galay oo isaguna lagu shaqeeyo hadda customku waa dhaqaalaha ugu badan ee Jubbaland meesha ay ka hesho wixii dakhli ana wax lagu xareeyo wasaaradda dhaqaalaha asalba yaala Jubbaland soo gala waa dekada kastamka weeye kastamku horta wuxuu ka bilowdaa asalba horta wuxuu ka bilowdaa ama doon timid ama markab yimid ayuu ka bilowdaa markabku inta badan wuxuu ku soo xidhaa muqdisho markuu yimaado waxaan loo soo diraa manifeska iyo badeecada saaran waana loo soo diraa sida qiimeynta xafiiska qiimeynta oo wiilkan madaxda ka yahay yaa loo soo gudbiyaa dhammaan marka manifeskiibu yuu qoraa wixii ku yaalay ka bacdi waxaan loo yimaadaa ninkii badeecada iska lahaa badeecada waa loo qiimeeyaa waa loo canshuuraa lacagtana wuxuu ku shubaa bangiga anagu qiimeynta markan loo qiimeeyo lacagta inta dhanaato ama ha bandaanta ama yaraatee كاش أنا ومقابلنا وحالو شباب بنك برقبان بحنا وحكو وزارة بنك الدولة أيوه شباب وحافظ حد وين نوعه إذا ما تبدأ بالكنو بعدها لو على مديني أما لو أستمعي بعدها فرضة عالمك international custom day صدر هذا لما جرى الصدى سومالية جرى الصدى عالمك ودنا وحنا بريو هذا هو قاعدنا هاي وحنا تعامل دكدها ما هذا دكدها سوماليا مانتو أنا بقول على كل سوق دقنا دكدها سومالية سوون مسينا دكدها عالم جا كون حرام كنعسق عالم كنعسق جود عالم كحرام أيوة في هذا ما تلو دقنا كنعسق عالم كا أتونكا يو دكدها الكاستمكا أتونكا أولو على مدينين لحي لو رتنك جنوري إن تهاي مالنتا كاستمكا دكدها أتونكا أنا خاصة جبلان وحين ورا هاي حسد وحا جبلان كوكا تكدوين يو أربول إنترناشنال وحا لنا هاي دموين درايف وقتها أما دكدها قلالنا هسل دوبلي بلا حاول لو دورو وحنا رجينا إن شاء الله تعالى سلوك أهم يو سدول الأهم إني لغش خير سيدي فرضها قلالنا وشقين هاي سي موفمنتية أما السعودات كدكدة أي ما في شغل وسعته لونا جالسية ذلك يدري دي سوا إن شاء الله تعالى شعب جبلان وحنا باقية إني جماعة فرصان كان في إستان فرصان هم نعرف كنا أيوة باش عارف كي الجولات كي تنفذ على كل كاشن هي سيدي دي سوا وصلنا إلى هذا هي جايبرتيس أو مالي سدكري سقلان هي كان دكانها عادي وشقية سيدي موفمنتي ولا يهرب شعب ولا شقينها وحان مدرسة مالي ورجينا هي الواقع هي نرجعي اللي بفرش